Hilmaamka ama xasuus xumada waa xaalad caafimaad darro oo ay dad badan la ildaran yihiin. Mararka qaar waxa uu isu beddelaa cudur afka qalaad lagu yeero dementia, kaasi oo noocyo kala duwan u sii kala baxo. Haddaba, inta aan u guda gelin faahfaahinta muuqaalkeega maanta oo aan ku soo gudbin doono 6 dariiqo oo aad ku xoojin karto xasuustaada. Fadlan like garee muuqaalkan, la share garee asxaabtaada, qaybta commentiga faalladaada inagu qor. Haddii aad nagu cusub tahayna subscribe inoo saar. Waad mahadsan tahay. Haddaba culummada dhinaca cilmu nafsiga ee caalamku waxay maalinba maalinta xigta sii qaadayaan dariiqooyin cusub oo aadamaha jirkiisu awood ugu leeyahay in uu daweeyo ama buuxiyo waxyaabaha uu tabayo ruuxa bini'aadanka ee caafimaadka qaba. Waxaan idin haynaa qaabab lagu xoojin karo xasuusta isla markaana maskaxda dib ugu celin karto waxyaabihii waqtigii ku dhaafay. Dariiqooyinkan oo ah kuwo ay soo bandhigeen dhakhaatiirta cilmu nafsiga ayaan filayaa inaad ka bogan doontaan. Dariiqa koobaad waxaad markaasi xooga isugu duubtaa gacantaada midig adigoo ku xoojinaya, taasoo la aaminsan yahay inay tahay dariiqa ugu muhiimsan uguna saameynta badan ee lagu soo noqdo xasuustii waxyaabihii ku dhaafay, iyadoo culummada cilmu nafsigu isku raacsan yihiin in gacanta midig oo sida feedhka la isugu duubo kadibna la xoojiyo oo ay maskaxda ka caawinayso soo celinta xasuustii kaa baxday. Dariiqa labaad ee aad ku xoojin karto xasuustaada waa inaad seexato, iyadoo faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee hurdada laga helo ay ka mid tahay inaad dib u xasuusato waxyaabihii kugu wareersanaa ee aad maqashay xilligii maalinimada ama duruustii aad maanta soo dhigatay wixii la mid ah. Dariiqa saddexaad ee aad ku soo ceshan karto xasuusta waxyaabihii ku dhaafay waa adiga oo lugeeya oo socda in masaafo ah, iyadoo ay isku xiran yihiin hadba socodka qofka aadamaha iyo xasuustiisa, isla markaana masaafo 3 kiiloomitir oo uu maalin walba qofka lugeeyo ay door weyn ka qaadanayso in xasuustii ay hagaagsanaato markastoo ay da'diisu ay sii wanaynaato. Dariiqa afraad ee kuu sahlaya in aad la soo noqoto ama xoojiso xasuustaada waa adigoo joojiya ama hakiya cabista sigaarka haddii aad balwad lahayd, iyadoo ay isku xiran yihiin hadba socodka qofka aadamaha iyo xasuustiisa, isla markaana masaafada waynu soo sheegnay. Haddana guud ahaan cilmu nafsigu waxay isku raacsan yihiin in cabitaanka sigaarka uu waxyeeleeyo qaybta xasuusta ee maskaxda qofka bini'aadanka. Dariiqa shanaad, hoos u dhigidda miisaanka jirkaaga waxa uu kaa caawinayaa in xasuustaadu ay sii wanaagsanaato, iyadoo dhammaan tijaabooyinka la sameeyey ay soo baxeen saameyn uu miisaanka qofka ku leeyahay xasuustiisa. Dariiqa lixaad oo aynu halkan kusoo bandhigi doono kaa caawin karo in isbeddel wanaagsani uu ku yimaado qaybta xasuusta aadamaha ayaa ah in uu qofka iska laabo ama iska xidho kombiyuutar. Isticmaalka kombiyuutarka ayaa qofka ku keena in dareenkiisa oo dhan wada siiyo shaqada uu ku hayo ee uu ka qabsanayo kombiyuutarka ama aalad kasta oo isticmaal haddii ay noqon lahayd telefoon ama kombiyuutar, taasoo keenta in maskaxda qofka mashquul badan ay samayso. Sidaa daraaddeed, dhakhaatiirtu waxay ku talinayaan in mar kasta oo qofka iska yareeyo isticmaalka aaladda elektarooniga ay maskaxdiisu helayso nasasho iyo degnaan, taasina ay dhabaha u xaareyso qofka in xasuustiisa iyo waxyaabo badan oo uu soo dhaafay dib ay u soo laabtaan. Haddaba waanu sii wadeennaa. Waxaynu ognahay in mararka qaar cudurradan kala gedsan ee xusuusta ay tahay kuwo halis ah. Haddaba dhakhaatiirta iyo xeeladaha lagu xoojiyo xasuusta waynu ka hadalnay: hurdada, ka fogaanshaha maandooriyaha. Xeelada kale ee markaasi lagu xoojiyo xasuusta waa mudnaanta xasuusta dhibka dhinaca aragga iyo maqalka waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto. Sidoo kalena waxaa la mid ah in xasuus la'aanta durba wax laga qabto oo aan la fududeysan. Isdhexgalka ayaa ka mid ah in qofka uu dhexgal dadka la sameeyo, iskana ilaaliyo kelinimada iyo fikirka, waxaana qayb weyn ay ka qaadan karaan in xasuustiisa uu xoojiyo. Waxa uu dhakhtarka sheegayaa in haddii arrimahaas oo dhan la sameeyo aysan damaanad u ahayn in xasuusta ay fiicnaanayso. Ma jiro qof kuu ballan qaadi kara in marka aad tallaabooyinka raacdo natiijada saxda helayso, balse waxay raacistan tallaabooyinka kaa yareynaysaa halista ku aadan in xasuustaada ay gebi ahaanba lunto. Haddaba waxaynu inta badan rajeynaa inaynu leenahay xasuus wanaagsan oo inaga caawin karta ogaanshaha liiska waxyaabaha aynu doonayno suuqa marka aynu tagno inaan ka iibsano dukaanka, ama xasuusahaaga sababta inagu kaliftay in aan dabaq kore fuulno marka aan kor tagno ama si fudud aan ugu heysano macluumaadka markii aan wax akhrisano. Waxaa jira qaabab badan oo xoojinaya xasuusteena oo hagaajin kara inaynu adkeeno, laakiin
Maxay tahay waxaa laga helay cilmi baaris u dambeysay oo ku aadan farsamooyinka kor u qaada xasuusta oo aynu arki karno mustaqbalka. Waa gadaal oo loo socdo. Waxaynu u maleynaynaa goobta iyo waqtiga inay yihiin laba shay oo aan wada socon oo aan wax xiriir lahayn. Inkasta oo waqtiga uu ku dul wareego booska wada sheekaysigeena innaga oo aan ogaan. Tusaale ahaan, waxaynu dhahnaa walwalkii hore waxaynu ka dhiganaa wax aynu soo dhaafnay. Waxaana dadka badankiisa ay sawirtaan in wixii aynu soo dhaafnay yahay cabir ballaaran oo gadaasheena maray iyo kasoo horjeedkeena. Cilmi baarayaal ka socdo jaamacad ku taal Ingiriiska waxay go'aansadeen inay horumariyaan xiriirka maskaxda ee u dhexeeya goobta iyo waqtiga si ay u helaan qaab kor loogu qaadi karo awooddeena dib u xusuusashada dhanka dhacdooyinka. Waxay tuseen isxilqaamayaasha liiska ereyo qayb ka mid ah sawirro iyo muuqaallo haweeney boorsadeeda la xaday, waxayna weydiisteen inay horay ama gadaal u socdaan 10 mitir ama hareeraha guriga. Cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen kuwa gadaal u socday ay macluumaad badan dib u xusuustaan marka loo eego kuwa la midka ahaa ee hore u socday. Gadaal u socodka ayaa maskaxda ku dhiirigelisay inay waqti gadaal u laabato si ay u gaarto xasuusta si fudud. Cilmi-baarayaasha ayaa helay natiijo la mid ah tan dadka sawirtay in ay gadaal u socdaan iyagoo aan dhaqaaq samayn. Natiijooyinkan ayaa ah kuwo joogto ah marka loo barbar dhigo daraasaad kale oo la sameeyay 2006. Waxaa kaloo cilmi-baarayaashu ogaadeen marka dooligu u socdaan siriqda neerfaha lagu magacaabo unugyada goobta uu ka shaqeynayo ama ka shaqaysiinayo goob kasta oo ay kasoo gudbaan. Waxa ay ku soo gudbeen dib u xasuusashada dhacdooyinka ee gadaal loo soo celiyo oo ay ka caawiso dooliga inuu si sax ah u xasuusto wadadii saxda ahayd. Tan xigta waa sawiritaanka. Ka waran sawiridda liiska dukumeentiyada adiga oo aan qorin. Sanadka 2018 cilmi-baarayaashu waxay weydiiyeen koox dhalinyaro iyo waayeel isugu jira inay xifdiyaan liis ereyo ah, kadibna waxay u qaybiyeen 2 kooxood. Waxayna ka codsadeen hal koox inay erey kasta ku xiriiriyaan sawir gaar ah, sidoo kalena ay qoraan kelimad kasta sidii ay u barteen. Haddaba saameynta sawir qaadista ee xasuusta ayaa ahayd mid waayeelka kooxda koobaad ay ku awoodeen inay dib u soo celiyaan ereyada si hufan sida kuwa dhalinyarada. Sawiritaankan waxa uu kale oo caawiyay bukaanada dhimirka inay wax xasuustaan. Arrintan waxaa sabab u ah in marka aynu wax sawirano in nafsadeena ku qasabno in si taxadar leh u tixgelino faafinta. Waxaan fikradaas qoto dheer ay naga caawinaysaa in aan wax ku xasuusano. Waana sababta marka aynu qorayno liiska waxa aynu iibsanayno ay ku caawiso inaad shay kale ama sheego kale oo badan oo aad doonayso in aad iibsato, xitaa haddii aad liiska kusoo ilowdo guriga. Waxaa intaa dheer in sawiritaanka uu kaga wanaagsan yahay qoraalka marka loo eego dib u helitaanka macluumaadka. Tayada sawirka ma saameyso hawshaasi. Nasashada iyo hurdada indho-guduudsiga ayaa ka mid ah dhammaanba waxyaabahan soo celiya xusuusta. Guud ahaan inta ayuu kusoo gabagabeynaya muuqaalkan. Like garee la wadaaga saxaabtaada qaybta commentiga aragtidaada fikirkaaga noogu qor. Waad ku mahadsantahay.